Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhyaaray kusoo dhawaada channelkeena fadlan haddii aadan subscribe saarin subscribe inoo saar haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow sidaa ogtihiinba World Cup ayaa lagu jiraa oo Arsenal iyo maaragtay waa la iska iloobayba ciyaaryahanadeedii way shining garaynayaan dhammaantood haddii uu yahay Bukayo Saka hadduu yahay maaragtay Matt Turner hadduu yahay maaragtay Granit Xhaka William Saliba oo bench lagu dilay isaguna waa jiraa hase ahaatee bal aan dib intaan u yara noqono Arsenal aan ku yara noqono iyo qaabka ay wax u wadaan Arsenal ciyaaryahanadeeda maanta waxay joogeen inta u joogtay Dubai ay aadeen ayagoo halkaa iskaga soo nasan doona inta World Cup ka harsan Gabriel Jesus oo dhaawac dartii World Cup ooga soo haray ayaa isna London jooga sidoo kale ciyaaryahanada baxay ee raacay ciyaaryahanada aaday Dubai waxaa ka mid ah Partey oo isna lasoo eliminate gareeyo laga soo saaray sidoo kale Ben White ayaa isna la sheegay in uu maaragtay kasoo tegay Qatar World Cup uu kasoo tegay una jooga England hase ahaatee sababta aanan la sheegin oo maaragtay ka dambeysa injury ma ahan laakiin waa sabab maaragtay personal ayaa la yiri waa kulley wax familkiisa ku saabsan ayaan jeclahay sida ogtihiinba suuqi ayaa furmi rabo January ayaa bilaaban rabo Arsenal iyo Edu Gaspar plankooda wuxuu ahaa 50 milyan in la siiyo marketkan hadda furmaya January-da ay kusoo iibsadaan ciyaaryahano haddii ay ciyaaryahano fiican maaragtay banaanka ay joogaan hase ahaatee Arsenal plankoodii wax ayaa ka daba yimid waayo Gabriel Jesus oo dhaawac soo gaaray weliba qaybtii jilibka ee la sheegayay aad u xun ayaa soo gaaray waa in strike la raadiyaa ayagoo marka hore Arsenal ay aimkooda iyo waxay raadinayaan ay ahayd in la helo khad dhexe iyo garab in la helo ay ahayd hase ahaatee maaragtay planka waa inuu isbedelaa xalay waxaa kaamirada ay qabatay Kroenke ninkii clubka iska lahaa iyo wiilkiisa iyo maaragtay Edu iyo Arteta oo maaragtay isla wada joogaan maaragtay USA halkaana ku wada shaahinayaan dabcan waxay ka fikirayeen oo ka wada hadlayeen clubka iyo qaabka u socday iyo waxay u baahan yihiin xaaladaha clubkana way la socdaan Arsenal tripkan waxay u egtahay in lacag la siin doono maadaama maaragtay potential ay leeyihiin inay qaadi karaan Premier League xagana ay u baahan yihiin kab waliba kabkii ay u baahanayeen mid kasii culus ay u baahan yihiin maadaama ciyaaryahanada ninkii waday iyo clubkaba maaragtay Gabriel Jesus uu dhaawac xun uu soo gaaray waxaa la sheegayaa Arsenal in ay ciyaaryahanada aadka u danaynayso oo World Cup-kan aad u fiirinayso uu ka mid yahay Declan Rice ciyaaryahan qaali aad u ah markay u yartahay 70 milyan 80 milyan ka yar aan lagu soo helinin maadaama World Cup-kan uu aad uga soo ifbaxay asaga iyo ciyaaryahanka Arsenal u joogay Saka iyo khadkooda dhexe ee England Bellingham kaasoo Arsenal ay isu dhawaan karin haatan la taagan yahay oo maaragtay kalabyo fara badan oo Arsenal ka waaweyn ay isku hardinayaan oo Champions League ku jiro marka ciyaaryahanka ayaa la sheegay Arsenal inay hadda listigeeda ku jiro sidoo kale sida ogtihiinba Modric ayaa waxay u egtahay already Arsenal inay plan gareynayso ama ay u diyaarisay lacag 40 milyan ah ayna soo iibin doonaan wax maaragtay hadalna uusan ka jirin ay sugayaan kaliya waqtiga saxda ah iyo xilliga uu furmayo kii kale suuqa sidoo kale Cody Gakpo ayaa isna ah ciyaaryahanka aad uga soo ifbaxay World Cup-ka Netherlands u soo ifbaxay sida ogtihiinba dhowr mar ayaan ka soo hadalnay ciyaaryahanka iyo Arsenal qaabka ay u raadinayso 3 kulan oo isku xigto ayuu 3 gool oo maaragtay World Cup uu xiray teamkiisa haddana maaragtay quarter final uu ku hogaamiyay oo maaragtay World Cup-kan already maaragtay 4 gool ayuu ka wataa mise 3 gool ayuu ka wataa ciyaaryahanka waa kaas oo isna Arsenal way daba taagan tahay inkasta oo ay maaragtay Manchester United ay lugaha kula dhagan tahay oo ay leedahay maya annaga ciyaaryahankan keensanayna siday u egtahayna haddii Arsenal ay isku qabsadaan maaragtay iyo Manchester United waxay u badan tahay ciyaaryahanka hadduu isaga go'aansanin uusan dhihin maya Arsenal baan u socdaa inuu Manchester United aadayo waayo ciyaaryahanku waa Dutch Manchester United ninka u ah macalinka coachkoodana waa Dutch manager labadooda waxay u dhashaan maaragtay waxay u dhasheen Netherlands ayay u dhasheen marka inay is jiitaan waa laga yaabaa oo maaragtay ciyaaryahanka halka uu ka dhaco
inkastoo Manchester United kaliya aan ahayn kalaabyo kale oo iyaguna fara badan ay ciyaaryahanka indhaha kusoo taagayaan oo isleeyihiin ninkaas soo qabta. Marka suuqa Arsenal wakaasa tripkan sida ayuu ku farmayaa balaankii u degsanaa iyo qorshihii u degsanaana Arsenal maartay waxay u egtay inuu ka burburay haddana ay u baahan tahayba tiimkii u horeeyay ee maartay ay ku socdeenba in la kabo iska daa bench qofka imaanayeen. Sidoo kale ciyaaryahankii ahaa Tielemans ayaa isna waxay u egtay Arsenal inay aad u hubto inuu ciyaaryahanka ugu imaan doono free maadaama kalaab kaloo soo codsanayana uusan jirin ciyaaryahanka asagoo Premier League gamekii u dambeeyay ahaa ciyaaryahanka Leicester horey u waday ee kasoo kiciyay gadaal haddana waxay maartay u sii egtahay in ciyaaryahanka aan kalaab kale uusan soo codsanaynin oo Arsenal maartay ciyaaryahanka ay keeni doonto waxay ahaataba January waa ina soo saaran tahay oo hal bil kaliya ay inaga xigto qaabka ay Arsenal sameysana waa arki doonaa haddana akhyaaray sida ayaan kaga tegayaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.